lama dhisi karo guddiga adeega garsoorka haddaanu dhisnayn maxkamadda dastuuriga lama dhisi karo haddii marka guddiga adeega garsoorkana ma dhismaayo aan dhahno maxkamadda dastuuriga waa la dhaqaaji waa arrintii marka annagu waxaan dhahnay maxkamadda dastuuriga iyo xuquuqul insaanka maqan markii la soo dhiso waa dad la dooranaya ma ahana gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga maxkamadda dastuuri ahaana loo soo dooranaya guddiga adeega garsoorka loo soo dooran maayo gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaankana xuquuqul insaan ahaana loo soo marka hal laga daayo todobadan hal meel way isku qataarmeen marka wixii oo dhan waa la diiday annaga xaggeena kama qataarmin baarlamaanka xaggiisa ka qataaran waxaa la sheegaa madaxweyne xasan cadaalad darridu heerkii gaartay xilligaas in adigoo madaxweynihii dalka ah kays cadaalad darro ah oo qofaa taqaano oo adigu markhaati camal ka ahayd laga xukumay gurigoo lahaa inaad ka bixisay adigu lacagtii ay maaragtay laaluushka si indirect ah maxaa ka jira may lacag laaluush maana bixin weyn kumana talagelin horta cadaalad darrada in la fahmo u baahan ma xilliyeysna annaga naga horna waa jirtay waqtigeena waa jirtaa haddana waa jirtaa weli nidaamkeena garsoorka sida dastuurkeena tilmaamayo oo dadkeena ku heshiiyeen in loo dhiso uma dhisna marka anaga joognana waa taa dadaal intaasaan galnay laakiin uma dhisno markii naga sii horreeyna waaba duruufo waa naga sii badnaayeen oo waa naga sii liiteen marka kaas waxbaa ka qaban lahaydeen haddaa soo noqon lahayd soo noqono waxaan arkaynay waxyaabaha hortebinta leh inay ka mid tahay maxaa kaloo qabiil ahaayoo islahaydeen waxbaad ka qaban doontaa de wax kasta oo dowladnimada ay Yuusuf qabiilaa way ahaayeen qabiil wada ahaayeen wax walba qabiyaha wax dhameystirnaay oo meeshii la rabay gaareen la lahayn jir wax walba waa bilow ay ahaayeen haddii aan taa ka gudubno hadda xaaladda dalka waad ujeedaa galmudug gobolladii aad dhisteen xilligiinnii oo dhib badan ka soo marteen ayuu ka mid ahaa inkastoo dhammaantoodba dhib laga soo maray oyna sahlanayn sida hadda howlaha galmudug u socdaan seed u aragtaa horta dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iideysto mid inaan u sheego aniga ninkaas 4 sano joogay 4 sano mugay dhamaatana sidaas quruxda badan meesha uga soo tagaanay dad badan waxaa loo sheegaa ay ku hadaaqaan inaan madaxweynaha xukunka ku haysanay iyo kan inay tahay kaas inay tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda waay 4 sano la doortay 4 sano uu leeyahay 4 sano uu leeyahay taaribkiisa uu leeyahay taas waa qodob cid ku haysataa ma jirto laakiin dowladnimada qofna gaar uma laha aniga mugaan joogay ciladayga waa la sheegi jiray iga sii horreeyay waa la sheegi jiray kan hadda joogana waa la sheegaya sida nidaamkii federalismka ee dastuurka Soomaaliya uu qorayay oo ummadda Soomaalida ay ku heshiisay ee anagu aan u dareen in la dhaqan geliyo ee aan wax ka bilowno ee meel aan soo gaarsiinay aniga ra'yigayga waxa waa dowladana sidii la rabay uma maamulin siima horumarinin siima qurxinin bal dib ay u dhigtay dib u dhac badan inuu ku yimid ayaan aniga hadda dareensanahay maxaa daliil u ah waxaa daliil u ah anagu مثلا aniga fursadaan sii jirna dadka haddii xataa dhexdooda uu problem ka jiro fursad ay ku xaliyaan ku heshiiyaan wax aan khilaafaadka dawlad goboleedyada dhexdooda dadka inaan qabaa'ilaa degan meeshii qabaa'ilka hadda مثلا qabaa'ilaa isku imaanaya qabaa'ilaa dadka wixii ilaa weli waa in odayaashooda dhaqanka wuxuu la soo keeno wacyigelin loo sameeyo la dhex fariisto dadka mas'uuliyadda ugu sarreeya dalka ay dhex tagaan la celiyo la isku tuusan rabo fursadna la siiyo koonfur galbeed waa ogtahay inta ay 6 gobol iyo 3 gobol ay isku haysteen ay joogeen inta jeero aniga tagay inta jeero inta tagay lagu mudaaharaday luga la gubay la waxeeyay la booqay la waxeeyay maalin ninkaan rabnaa inta kana xiraal kala raacday waa dhig kar ciidamada waa haysanay ciidamada amisom meesha jooga waa joogeen oo naga amar qaadanayay 3,000 oo ciidan oo dawladda Soomaaliya ay leedahay dawladda federaalka ka amar qaataa meesha joogay marna kuma nandiyeen inaan xoog inaan ku xalino mushkiladooda maxaa idin ka hortaagnaa inay xoog ku xalidaan maradal inaan wixii xoog aan ku soo saarnaay inay dadka waxay leeyihiin aanay dareemin anagoo dadku waxay leeyihiin aan rabnay inay meesha ka soo baxaan marka waqti dheer ay nagu qaadatay inay ay socotay galmudug marka 8 bilood marka wada xaajoodkii iyo kaalintii dawladda dhexe ee dib u heshiisiinta dawlad goboleedyada meesha ka maqan leedahay dawladda dadka localka ah dawladdu laba waxyaabood laba ciladooda meesha ka jirto
maamuladii dhisnaayoo joogay oo shaqaynayay oo dowladdii wada shaqayn fiican aanay la lahayn oo aanay tixgelintoodii iyo waxay mudnaayeen iyo dhagaysigoodii iyo soo dhaweyntoodii aanay haynin. maxaa u sababaha isleeda taas aragto sida adiga hadda aad dhahaysa bilowgii oo ah awooddii dowladdii dhexe la daciifinayaayo nimankaani dowladdii dhexeba challenge garaynayaanay u aragtaa. war dadka Soomaalida sidaan ku heshiiyay hadii laga baxay xataa dadka Soomaalida inta isu yimaadaan waan anfici way federalismku waa ka baxnay aan dhahno laakiin ninna xaq uma laha wixii lagu soo heshiiyay inuu asaga rabitaankiisa ku bedelo. taas waa qodob waxaan qabnaa marka aniga waxaan qabaa marka mesela nidaamyada dhacay koonfur galbeed waqtiga ka dhacay inta waqtiga ka dhacay dawladdu inaan dad kale inayna jajoobin waa inay ka ilaalisaa ayaduna waa inayna jajoobin. laakiin dawladda hadda waxaa la dareemayaa in dadka laakiin waxay dhihi karaan dana siyaasadeed ay leeyihiin madaxa ayaga saaxiib la ah oo doorashana waa soo socotaa sidii adinkuna xilligiina aad samayseen asxaab saaxiibadiin dad ah inay soo galaan inay saas u fikirayso lagama yaabo. waa u fikirayaan waan u fikiri karaan waana mana ku eedaynaa inay u fikiraan. ninka siyaasiga ah ninku ra'yi ah inuu talada meeshaas qabto inuu ku fikiro madaxweynaha iyo tiimka maanta xukunka haya dad ayaga la fikir ah inay dowlad goboleedyada ka soo baxaan inay isku mashquuliyaan anay dhib kuma arko. processka waxaan dhib ku arko sidee lagu soo saara qofkii aan saaxiibkii ahay xoog iyo qoray iyo dadka in la dilo iyo in la xiramaan ku soo saara mase influencing siyaasadeed iyo waxbaan gadaal maray iyo waxbaan ka daba shaqeynaa dadka dhexdiisa dadkii raalli aan ka soo dhax saara laakiin in la koonfur galbeed wixii ka dhacay ogtahay haddana qatar kale galmudug ay ka soo socotaa. maxaa isleeyahay galmudug way ka dhici kartaa wallahi de galmudug haddaan si fiican loo maareyn qatar xoog la tii koonfur galbeed ka darnaa maxay tahay khatarta imaan kartaa in la isdilo hadda dawladdii way tagtay ciidan ay geeyeen ahlu sunna ciidankii ku biiraan. waxaan rabnaa inaan isla fahmo dalkan dawladu lahaan jiray nooc kasta ha ahaatee muxuu u dulmay 200,000 oo ciidan ah oo diyaarada hawada ku jira iyo maraakiib badda gantaal xambaarsan oo badda maraayo ayaa dawladda dalkan joogta ay lahayd 200,000 oo ciidanka ay dawladnimada waa celi waayeen dadku markay dawladda naceen. horta conceptiga dawladda in qorar lagu difaaca inuu ka yimaado dawladdu qaanuunka qorar lagu difaaci karaa iyo askari laakiin rabitaanka siyaasadeed shacabka askari lagu ma difaaci karo iyo qoray waxa inay noo kala cad yihiin raba askarigu qaanuun uu ilaali karaa qodob qaanuuni oo jiro oo ilaali kara laakiin marka hadda fiir mesela maxaa dhacayo askartii siyaasadii la dhaxgeliyay dadka xira dila kala raacdeeya u diida waxaya maxaa imaanaysa marka askarigii Soomaaliyeed oo aniga askari aayo qawaaniinta inuu ilaaliyo rabay oo ma arkay Yuusuf Xasan wiil u shaqeeyaan u arkaya tuug waayaan la wax ka jira mana aaminayo mana yeelayo qawaaniinta inuu fuliyo xataa biri ma ka yeelayo laana qawaaniinku uu fulitiga waxaan leeyahay hebel u shaqeeyaa marka waxaan rabaa aniga wax soo lagama yaabo ciidanka Itoobiya ee hadda la geeyay meesha inay amniga xasiliyaan oo ciidankii hore xoojiyaan si doorasho u dhacdo. waa kuugu celinaa dadku haday aaminsan yihiin inuu amniga saxayo ayuu amniga saxi karaa dadku hadaanay si kasto asiga uu sax u yahay dadku hadaanay aaminsaneen inuu amnigoodii saxayo ma saxi karaan. see lagu saxi karaa marka doorasho xor oo xalaal inay ka dhacdo galmudug waxaa lagu saxi karaa beelaha galmudug inay isku yimaadaan fursadna la siiyo waqtigii doonta ku qaado bil iyo 2 iyo 3 iyo 4 ku qaadato fursad in la siiyo meel wada fariistaan ay wada hadlaan dawladuna ay fududeyn qarashka alla luushta ma dhahay qarashkaas fadhiga ay ku fadhiyaan iyo isu keenistooda iyo meesha ay ku sheegaan amniga sugistiisa iyo waxa uu qabato laakiin yaanay dawladdu muxuu ahaay hadda dawladdii waxay leedahay dib u heshiisiin la sameeyay qabaa'ilka wuu soo dhamaaday haddana waxaa la qabtay waqtigii doorashada road mapkii lagu samayn lahaa maalintii baarlamaanka la dooran lahaa maalintii madaxweynaha la dooran lahaa wixii oo dhan iyo nidaamkii oo dhan waa la sameeyey nidaamkaas ma waxaa leedahay waxaa ka dhiman oo dib u heshiisiin u baahan yahay weli aniga keligay inaad ku jajgaraysa markii horta inaad deegaankii inta tagtay dadka soo wareysatay fiicnaan lahayd laakiin aniga waxaan qabaa dawladda weli fursad u furan in oo jadwal loo sameeyo oo dawladdu jadwalka ay hagaajiso ay dhaala sidaan inay wax u dhacaan la rabaa taas lafsadeeda waxaa rabaa in la isla ogol yahay dadka in laga tixgeliyo la warsado dadku haddii xataa waxaan is qaadan karin ay ku dhawaaqayaan ama ra'yi aan is qaadan karin ay soo jeedinayaan dawladdu mid dhaxo laakiin xilligiin Ustaad Xasan madaxweyne ahlu sunna iyo idinka xataa xooga isticmaasheen dagaal idin dhex maray dawlad dhisidana uma dhex marin annaga ahlu sunna muxuu idin ku dhex maray dawlad dhisidana uma dhex marin wasiirka arrimaha gudaha
aan intaan dirnay ahlu sunna oo Dhuusamareeb haysato yaa intuu u tagay oo offer siyaasadeed sidaada dowladdu ay leedahay oo dhan aan u geynay ahlu sunna waa diideen waxay soo dalbadeen annaguna waxaan u aragnay walax ayna galmudug ku dhismayn inay tahay oo rabitaankooda zaa'id ah qabaa'il la isku keeno la isu jiijiidayo koox iyadoo aanan qabiil ahayn waxa ay dalbanaysay annaguna waxbaan u afargarayn dooraan siinay gorihii baarlamaankaan door ka siinay xukunka tartan kalaan door ka siinay ayaguna doorkaan aan siinay way dhaliileen waa diideen hadday diideenna hala qajajciyo hubka laga dhiga maanaan dhihina waa dhaafnay fursad kale in la sii siiyo waqti la siiyo marka isku dhaca ma ahayn qorshe lagu talagalaad leedahay isku dhac ahaa waqtigii dowlad dhisid oo galmudug ay jirto isku dhac ma jiro isku dhac waa ka horreeyay ka sii hor ma jirin galmudug daraadeed dagaal ahlu sunna iyo dowladdu dhaxmari ma jirin waa hagaag hadda siyaasadii waad ujeedaa meeshii ka deganayso madalaad samayseen waa hadasheen idin inta isku tagteen adii madaxweynihii ka horreeyey mudane sheekh shariif siyaasaddii cakirantay kadibna madaxweynihii ayaad kulan la yeelateen kulankaas dhanka xukuumadda wax waroo ka soo baxay ma jiro ilaa hadda adinkaa ka hadasheen maxaad nooga sheegi kartaa oo is leedahay waa la isku afkartay maalintii aan madaxweynaha ka soo noqonnay statementaan samaynay magaca madasha anigaa ku hadlay markaad u tagteen madaxweynaha markaan ka soo noqonnay maalintii markaan soo joognay 3 saacadood ka badan madaxweynaha isa soo fadhin wax badanaan ka soo wada hadalnay wax badanaan ku soo ballannay in la dhaqaajiyo wax badanna in dib kulamo dambe looga hadlo wixii farsamo loo diro wixii siyaasad looga hadlo aniga madaxweynihii hore madaxweyne shariifna waxaan wakiilka ahaynay 6 xisbi ee madasha ku jirto oo ayagana dirsaday markaan annaga madaxweynaha qodobada aan maalinta meesha ka sheegay 5 qodob ugu waaweynaayeen wixii aan madaxweynaha ku soo ballannay oo ku soo heshiinay waa sheegnay maxay ahaayeen qodobada Yusuf it's on the record way inta waana la ogyahay waxay ahayd muxuu ahay doorashada guddi inaanu jirin dalka doorasho inay ka dhacdo waqtigeedii ay ku dhacdo doorashada dhacaysa iyo sida u dhacaysana in laga wada tashado yaa ka wada tashanaya ku heshiideen saamilayda siyaasadeed wax la yiraahdaa jira buugta dowladda federaalka dowlad goboleedyada xisbiyada hadda samaysmayo sharciyada haysto iyo dadka Soomaaliyeed xitaa bulshada rayidka annaga higsiga 2016 inaan sameeyno 13 shir ayaan xamar ku qabanay 7 shir dowlad goboleedyada iyo dalka dibadiisa ku qabanay ka bacdi yani higsiga la soo dhigay heshiis ku wada gaarteen wada jira ra'yigoodii markii la soo arooriyay wixii iska qaadan kareen suurtagalka ah ayaan ka sameynay iyo inaan waqti kursiina imaan dad badan oo siyaasadda ku jiro oo aniga aan saaxiibanahay iyo kuwa madax waaweyn ah oo siyaasadda ku jiro kursiimada waxaan war fursad aan helno doorashada waa keeni karnaa ay qabeen anina waxaan dareemayaa dowladnimadu inay ku sii daciifto muugiye haddii oo wax ku darsano in laana awood xaq sharci uma leeyahay marka adaa diiday inaad ku darsataan waa cadaashada maanta lagu wacdiyaa ma qabo in maalin lagu daro waqtiga dadku ay bixiyaan doorashada waa la marka qodobadii aad ku heshiideen oo madaxweynaha oo doorasho in la qabto inaan lagu heshiiyo madaxweynaha ku heshiinay doorasho in la qabto waqtigeedii lagu qabtaan ku heshiinay doorashada in laga wada heshiiyo doorashada qabsoomayso sida loo maamulaayo waxaan ilaa iyo hadda maxaa ka fulay arrimahaas marka waxaa kamid ah dastuurka in la ilaaliyo maxaan ku yiraahdaa xuquuqda muwaadiniinta in la ilaaliyo waxaa kamid ah muxuu ahaay xaqa qofka muwaadinka uu leeyahay oo dastuurka in la ilaaliyo waxaa kamid ahayd amniga iyo ciidamada amniga in la taageero oo loo wada istaago wax badan kamid ah annaga dhinaceennii wixii aan ku soo ballanay waa ka soo baxnay madaxweynaha dadka waa u sheegnay in la heshiiyaa u sheegteen in la heshiiyo oo waxaasna lagu heshiiyey waxaasna ay dhiman yihiin oo ay soo socdaan si darro dowladdu ma sheegin niyad sano uma qaadan annaga dowladda inay sheegi weyda xafiiska madaxweynaha iyo xukuumadda iyo inay sheegi waayeen oo ay dhihi waayeen odayaashii meesha yimid ee madasha wakiilka ka ahaa waxaanan ku ballannay
wixii annaga aan sheegnay xataa haddii aan wax zaa'ida oo aan meesha ku jirin aan sheegna xataa ayagu mar walba way xaq u lahaayeen waxaasna waa ku ballanay waxaasna kumaanaan ballamin inay dhahaan. marka maxaa u qaadateen inay ka hadli weyso inayn dhabka ahayn madaxweynaha waxay aan kusoo heshiinaan u qaadan madaxweynuhu inaana dhabka ahayn. dib ma ula hadasheen mar kale horsee wax u jiraan ma dhahdeen? sideedaba anagu madaxweynuhu inuu asagana soo raadiy mooga anagu mama raadi karna. maxaa diidaya inaad waa raadisaan? isku daynay intaasoo jeero horaan isku daynay madaxweynaha anagu ma heli karno. madaxweynuhuna sidiisaba isagaa laga rabaa dadka inuu reach out waxa la yidhaha uu sameeyo uu raadiyo leanna ninkaas biisigaa mashquulkaa oo ama safara ku maqan ama dalka howlihiisa hadda maadaama madmadow iyo niyad xumi ay soo ifbaxday oo tafsiirkaas hadda bannaanka u soo baxay maxaa tallaabaha samaynaysaan? والله دي أنا أول بحث بالسياسة ده أنا هين درانك ده كان سياسة ده درانك السياسة ده كان عن كترجميني تي بعض سياسيا إن أنا هذا ولي ورئيس كان كهر ورك عن كلها ما ننبهن مدعونو بلانتي إن أنا كنت هجنين عن درين سنة أنا ولي حتى ضدك لما نموذج ورئيس كان كهر وأسكت إن مدعونا فرنتين إن جارسينو وشينا عن سيدا صحمة ما ينسونه marka hadde anagu wanaagaan ka wadnay niyad samaanaan ka wadnay dadkeena dad badan oo kamid ah madaxweynaha inaan la kulanno ma rabin inaan la kulanno madaxweynaha u tagno la fariisano la kulanno dadkeena dad badan oo kamid ah laakiin maxaa isugu weydeen inta baarlamaanka uu ka doodayo sharciga doorashada oo dib u habeyn uu ku soo sameeyay maxaa u degdegaysaan? maanaan degdegin oo wax aan ku hadlayno dhanba qaanuunka ahayd dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa qoraayo muddada baarlamaanka iyo madaxda la doortay waa 4 sano lamana kordhi karo dastuurkay ku qoran tahay. laakiin haddii baarlamaanku isku waafaqo in baarlamaanku korarsado ka waran? baarlamaanku isuma kordhi karo sidoo kale ayadana qaanuuna jira dhahayo baarlamaanku isuma kordhi karo isaga isma dooran asiga mandate-ka asiga isma siinin isuma kordhi yaa wax kordhin kara yaa wax kordhin in laga heshiyo siyaasiyan maadaama wixii muddadii mas'uuliyadda baarlamaanka iyo madaxda la siiyay ay dhammaadeen hadday tahay marka madaxdu inay ka shaq oona la arko horta weliba laskuma raacin inaan doorasho la qaban karin moogtahay doorasho la qaban karaan baa anagu joognaaba. marka waaye nuuca doorashada aad u rabtaan idinku waa nuucee? nooca ugu fiican oo dastuurka iyo qaanuunka qabnaa haddii taas aan la qaban karin inaan laga tashan annaga waxaan rabnaa waxa doorashada inay dhacdo sida dastuurka qaba loo qabto qof kastoo Soomaaliyeed ay doorashada ka qayb gasho kulli arko hadday dhici karto sida qaanuunku u tilmaamay bil xarf doorashada rabnaa inay u dhacdo. laakiin madaxweyne xoogaal aad tahay waxyaabo badan aad ogtahay inayna dhici karin in caqabaad jiraan markaad qiimayso oo ka xasan sheekh ahaan ka mas'uul madaxweyne aqoon-yahan goobjooge intaasoo dhan adoo ahoo joogtida dalkii nasiib u yeelatay madaxweyne ku nool inaad tahay maxaad is leedahay qaabkeed isleedahay way u dhici kartaa doorashada iyadoon la isin dhatirayn? fiiri horta mas'uuliyadda dalka inay doorasho ka dhacdo dowladda ka mas'uul madaxweyne horena ka mas'uul maaha xisbi ka mas'uul maaha dowlad goboleedka madaxweynaha joogana ka mas'uul maaha waxna waa inaan kala garanaa annagu mar walba dowladnimo waa waxaan ka hadlayna yuusufow dowladnimadana qawaaniin iyo nasuus deganoo la garanayo ayay dowlad ku tahay haddii mushkila ay timaado sida qaanuunka waxaa loo dejiyaa mushkilad dhacday berri si aanay u soo noqon ama mid dhici doonto laga baqayo xalkeeda qaanuunka loo dejiya laakiin haddana adduunyada waxaa dhici karto mushkilada inay dhacdo loo waayana qaanuunka meel ayna uga qornayn markaas waa in qaanuun loo sameeya si qaanuun loogu sameeyo marka waxaan qabaa doorashada dastuurka iyo qawaaniinta dastuurka tilmaamayo sharci kastoo doorashada waa inuu dastuurka oo compatible waa inuu ka dastuurka u yahay mid maxaan ku la jaan qaadi kara inuu yahay waay marka waxa muhiimka asalka waa dastuurka waxaan qabaa aniga doorashada sida dastuurka